ujeedana xoogaa waxaad moodaa inay carada ku badatay run ahaantii anigana taasi aad bay ii dhibtay markaa waxaan jeclaystay bal inagoo qoslayna haba yaraatay inaan arko kanaalkeena youtube-ka Isfahan Blossom haddaad ku xiran tahay markasta positive energy inaan kula wadaagnaan halkan u joognaa iyo dib u heshiisiin niman yahow qof kastoo idinka mid qiimo ii leeyahay waxaan jeclahay inaan falcelin ka sameeyo postiga iyo commentiga iyo positive energy-ga iyo arrimaha wada opta ma fahmaysan magacaygu waa Abwaan Qaraabo Jacayl idinka qaarkiina Xabiib Shikeeti baad maalmahan igu yeertaan oo anigu waxba ma diido aan wadaaji waaxid baanahay run ahaantii haddaan barnaamijka guda galo saaxiibayaal qodobka ugu horeeya aan ka bilaabo horta barasho wanaagsan waa markii inoo ku horeysay oo aan si live idinku soo galo oo aan idinkala sheekaysto programkan isaga ah iyo maalmaha kan dambe wixii jiray markasta waan jeclahay inaan idinla soo hadlo ama fariin afkaaro iyo idinla soo wadaago wixii inoo kala dambeeya xataa maaweele iyo madadaalo inaan idinla qaato waan jeclahay laakiin waqtigu waxaad ogaanaysaa inuu wax kasta ka qaalisan yahay mararka qaar walaalayaal horta sababtii nagu kaliftay in aan bilowno ma ahayn anigu haddaan isukin sheego horta ma ahe qof youtubera mana ahe qof caanimo ama cood ka doonayay waxaan arkay bulshadayda aad iyo aad inuu negative-ku ugu badan yahay meelaha ay daawadaan iyo social media waxay ku shargaraynayaanna ay tahay negative wax ugu badan ama diidmo marka fikradaydu waxay ku bilaabatay intaan diidmo wadi lahaa maandaayi dhaha anigu ilaahu aada beerka u dhimanayna haddii aan bilownay kadib qodobkaasi waa markaa midda labaadna waxay ahayd in aan anigu waayay dadkaygii aan Soomaaliyeed isku luuqada inaan qodobka labaad waxay ahayd inaan anigu waayay dadkaygii Soomaaliyeed oo aan aadka u jeclaa aan ka baqay inay luuqadayda af Soomaaligu iga fakato iska daa kuwa la korinaya naftayda aan baqay waxaan arkay erayada qaar inay igu cusub yihiin mar labaad anoo intaasna de ku mashquulsanayo niyada ku hayay markaas waxaan suuraystay bal qaar kamid ah dadka aan aqaanba kuwa aan aqoon iska daayay marka waxay ila muuqatay inaan bal labada shayba ka fargareeyo inaan bulshada negative-ka ka yareeyo oo dib u heshiisiin weeyo wada qosolnad iyo dib u heshiisiin u sameeyo cid iga mudan maanta inta aysan jirinin midda labaad waxa weeye de walaalayaal idinku inaad ogtihiin ma aqaan 6 sano anigoo jira ayaan jeclaystay qof kasta inaan ka farxiyo waxaase hubaala 10 sano inay igu qaadatay inaan sidii aan u qabay wax noqon waayaan waxaan qabay dadka in loo qoslin karo oo kaliya ama looga farxin karo in jeebka loo furo af macaan gacan macaan baa dhaantaan aaminsanaa laakiin kadib waxaan ogaaday de noloshuba jeebka inay ka weyn tahay yaraanta nacnaca maaragtay ilmuhu wuxuu oran jiray hadda nacnac uu helo farxi jiray ma ogtay laakiin nacnaca markuu dhamaysto finish line-kii weli halkiisii uu kasii bilaabanayaa waan wadaynaa saaxiibayaal inta ay socon karto inaan idin dhiirigelino idinka soo farxino nagu haleeyo annaga laakiin hal baan idinka codsanayaa midda aan idinka codsanayaa waxay tahay saaxiibayaal annagu waxaan ka helnaa Soomaalinimada meel kastoo qofka Soomaaliga uu joogo ama gobolada kale dalalka kaleeto kamid ah ama kuwa goonida u taagan Republic of Somalia la yiraahdo ama meel kastoo ay noqoto anagu kullayba dhulka la isku haysto waxa weeye shaqadayada ma aha siyaasaduna shaqadeena ma aha kanaalo badan baa u furan YouTube-ka ku yaala anagu af Soomaaligaas aan ku heshiinaan taaganahay bas inta haddaan idinka helno wax kale la idinkaga ma baahna waxa weeye xaal warniga majaakadaydii baa karsamaysa Xabiib Shikeeti inay isaga kindigo mooyaane marka saaxiibayaal
cilada kale to jirta ma idin sheegna qosol baad ka qaadeen isfahan brosam laakiin anigu nervous baaban iska ahay xabiib sheekeyta xaaji mahagaaga laga quusay maxaa meeshan ka qabanaysay haddaan ku hayn xaalku socon may mararka qaarna waxaan ka baqaa kiishad nin leeyahay meel taal ka gaarsi kolay wayno ku imaanayaa inay ka dhacdo marka kurrafaadnay beenta runta ma isu sheegnaa kanaalkeena ku soo xirma subscribe saara waan idiin soo turjumaynaa hadeertadan waan ballaarinay kanaalkeena dad kala duwan ba wax idiin soo turjumi doono oo rag iyo dumar ba isugu jiro laakiin waa marka aan idinka aragna inaan korinaysaan kanaalka idinkuna koraysaan laakiin walaal haddaan la korayno la isku dhagan yahay dee anigu idinkuma dhegani walaalaha aan jeclahayna waa tihiin inaan wax idiin wadana waan jeclahay laakiin qof kasta waqtigiisu waa qaali wuxuu haddii aynan qiimihii loo baahnaa helaynin cidna inay isku daaliso maaha yaa waa arki kartaan waxaan kale sidoo kaleeto u baahnayn inaan commentiya aad u fara badan oo aad noo soo qortaan filcelin ka bixino laba kelmadoodna waan sii dabagelaynaa oo jawaab baan rabaa inaan ka bixiyo oo dadka ku cuslaaday horta niman yahow waxaa jirta inaan 3 jeer adeegsaday hal kelmada inta badan ma badni inaan 3 jeer adeegsado haddayse ilaahay ama rabbiga u ahayn ama wacade aysa ahayn oo aan inta badan adeegsado ma adeegsado kelmadaha af Soomaaliga inuu bad yahay baan dareemaa ilaahay gacalow mahadiis kelmadaas waxay beertay buuq aad u badan mana aanan rabin dadka qaarkood waxaan afkayga soo marin karin inay yiraahdaan bay ku kaliftay la yaab ma laha nimaan dhul arag dhaaya male marka lagu leeyahay waa sidaan oo kale jiir han ku weynaaday inaan noqotido wax iska xukuntidna maaha waxa weeye kelmadda ilaahay gacalow mahadiis gobollo dhan baa laga yiraahdaa oo dad Soomaaliya degaan haddii aad si kale uga soo jeedid waxaan xasuustaa waan ibsaday kelmadaas yaana ka maqlan qof iigu hanjabaya iyo kuwa aniga diinteyda wax ka sheegaya run ahaantii dee ilaahay gacalow mahadiis ama ilaahay gacal mahadiis horta kelmaddu waa gacal la isku haysta dhibto asigaana loo mahad celinayaa de ilaahay hadduusa gacal ahayna gacalada naxariis baan u aqaan anigu af Soomaaliga markaan adeegsanayo ilaahay hadduusa gacala ahayn ama uusa gacalow noo ahayn cidda kale oo gacalada haysa dee idinkaa garanaya aniga dambi kelmadaasi iguma aha waana adeegsanayaa mararkan iyo marar kaloo badanba marka meelaana tegin baada tegin adeer dhibna ma lahan waa caadi maayo mahi laga gala dhanaan lee waayo waad soo dhedhiminaysaa hadduu allayd mahaantu marbay kaa jabaysaa taasna intaasaan ugu gudi sidoo kaleeto waxaa ka mid ahayd kelmad aad aniga xataa iga qoslisay markii inta halkaa looga soo istaagay iyadoo dilan la ii keenay kelmadaasi waxay ahayd war xabiib sheekeyti ma adigoo intaa leeba rabtaa inaad waxaysid oo raggaasina kuu joogaan dee waxaynta wax kastoo la sameynaya aan naqaanay dadka iyaga caafimaadka qabay bilmatalanba markaan shaqaynano oo ama qofku noo yimaado aan dan leenahay yiraahdo war saaxi maanta ito hawl baan ka lahaa ama dan baan lahaa maxaad qabanaysaa waxbaan kaa rabay dee wax badan baan wax waxaysanayaa saaxib waxbaan wax waxaysanayaa meel halkaan aan wax ku wax waxaystaa suuq halkaan aan wax ku wax waxaystaa gurigeygii baan wax ku wax waxaysanayaa dee af Soomaaliga haddaad soo cakistaan oo soo dishaan oo qarnacna faa'iidna ku soo reebin badeeca xumaatay ninkeeda leh idinku noqonaya inaan idinku dheereeyo marraba barnaamijka walaalayaal wax badan oo xigmada iyo wax badan oo qosla waan wadaagi doonaa insha Allah tacaala isbarashay inta tani tahay marar badan baan idiin soo fariisan doonaa sidoo kale laba qolo inaan target gareeyaan rabaa anigu youtuber ma ahi laakiin fikirkii aan keenay baa youtuberka wadadiisii wada ka dheeraysa maray marka haddaad tahay youtuber raba inuu maanta ito
wax sameeyo oo dhaqaale ka raadiyo YouTube-ka inaan ku caawiyo diyaar baan u ahay. dadka aan ka qoslinayo inaan wax ku baraa way iga sii qiimo badan tahay baan oran karaa say waxbarashadu qosol kugu hara laakiin aqoontu ma hadho. waan ku caawinayaa insha Allah tacaala. haddana waxaan bilaabaynaa ciyaalka loo calwaayay marka laga soo tago su'aalo badan oo ay asxaabtayda qaar ka mid ay soo weydiiyeen ama taageerayaasha Isfahan Blossom oo ay ka mid tahay sida video loo edit gareeyo, sida videoga codka loo saaro iyo applicationada ugu wanaagsan. farxad bay inoo tahay inaad naga sugaysaan annaguna hadda soo gacan banaanaano aan idiin soo gudbina insha Allah tacaala. programmada aan soo wadno waxaa jira kuwa cusub, barnaamij cusub oo wanaag wadaag la yiraahdaa jira. barnaamijkaas haddaad garanaysid dhaqankii Soomaaliga ama wax kugu laaban yihiin kaash baad ku heli kartaa. Isfahan Blossom ayaadna kala soo xiriiraysaa kaashka meesha ka helaysid. waxaan kaa codsanaynaa inaad ku xirnaatid kanaalkeena, subscribe saartid, una toogaysid barnaamijyada. barnaamijka kasta oo aan soo gelino buu noqon karaa iska fiiri adigu. sidoo kaleeto ka qaybgelin dhab ah ayaan doonaynaa inaan idiin samayno oo aad kanaalkeena ka qayb qaadataan. waxaan idiin wadnaa barnaamijyo cusub hadduu alla idmo. dhalinyarada inaan caawino waan jecelnahay, waan isla koraynaa. dadkaygiiyo dad wanaagsan baa tihiin, inta xuna way idinku yar tahay. laakiin waxa weeye waxaa loo baahan yahay bal inaan is-xisaabino oo inteena wanaagsan aynu isku dayno inaan meel iska soo saarno. qodobka saddexaad aan usoo gudbayo waxaa weeye dad badan baa isoo dhiirigeliya. markay isoo dhiirigelinayaanna waxay igu compare gareeyaan ama ila simaan dad kaleeto inaan challenge ama tartan kula jiro oo kale magacyadooda ay soo sheegaan. run ahaantii dadka ma aqaanin, laakiin dhowr jeer marka la igu celceliyay magacyadooda waan bartay. yar khadar la yiraahdo la iisoo sheegayaa ka mid ah, Abuukar Culusow waa ka mid ah. ma aanan aqoonin, laakiin commentiska ay iisoo qoraan dadka daawado videoyaasha aan soo geliyo Isfahan Blossom ayaa ii sheega. marka inaad dhiirigelisaan anigu waan ku faraxsanahay. haddaad rabtaan qof waad igu compare garay kartaan oo challenge waad igu samayn kartaan oo aniga maaha idinkiiyo qiyaastiina. laakiin waxaan idinka codsanayaa dhiirigelinta wanaagsan oo qof dhiirigelin karta inaad ku fiirisaan. waa dad khaas ah. dhiirigelintaas maxay tahay ma garanaysaa? dadkan aad magacyadooda ii sheegaysaan waa dad soo dadaalay, waa dad bulshada iska soo dhex saaray. wax kastoo ay sameeyeenba dadaal bay geliyeen. marka aad ii soo gudbinaysid xogtooda ama aad challenge aniga iyo ayagana dhex dhigaysid, ha xaqirin. ma fahmaysaa? ha xaqirin. qofku waa qof walaalkaaya, waxa uu soo qabtay u ogolow. barkee qofka aan dadka u mahad celin ilaahayna uma mahad celiyo. ma fahmaysaa? marka walaal weliga laabtaadu way weyn tahay, cid kastana way qaadi kartaa. u fur qofna ha xaqiri insha Allah tacaala. dad walaala baanahay weheliyo tol baanahay. dad walaala baanahay weheliyo tol baanahay. waayaha adduunka ina kala walwaale allow wayn iswaayine. dad walaala baanahay. positive energy baan idin qabaa anigu. walaalayaal horta arrin weyn baan rabaa inaan idin kala hadlo. ciyaalkii loo calwaayay ma aynan joojinin inagu. sababta aan u bilownayna ma ahayn wax joogsada. walaalayaal waxaa jirta sabab yar. reflection baan idin siinayaa, signal yar baan idin siinayaa. anigu horta filinkii ugu horreeyay oo aan soo turjumay, ogolaanshaan kusoo turjumay, kagana soo qaatay dadkii iska lahaa. hadday sidaas ahayd oo aan ogolaansho kusoo qaatay kuna soo turjumayay 2 saac iyo 20 daqiiqo soconayay. inagu dad islaam ah baan nahay. waxaan ka jarjaray wax kasta oo aanan diinteena iyo dhaqankeena ogolayn. marka waxaad daawateen 16 qaybood. waxaa idinka dhimanaa halkaas 2 qaybood marka laga saaro intii aan ka jarjaro xumay. hadda filinkan markuu dhamaado
waxaa loo baahan yahay ama aniga hadafkaygu yahay inaan wax kasii fiican idiin turjumo. turjumaad keliyana maaha waxaan meesha ku hayna sidaan u aragno, laakiin maskax rakibid oo ka weyn baan soo wadnaa hadduu alla idmo. reflectionku waxaa weeye bishii ugu dambeysay hadda sida aad halkan ka aragtaan dad aada u fara badan baa daawaday, ciyaalkii loo xaal waayey iyo wax kale hadday noqotaba waxay gaartay inaad daawateen bishii ugu horreysay 230,000 oo daqiiqo, ama bishii labaadba sidoo kaleeto. waxaa soo martay 85,000 oo qof halkii boostaba. kanaalkeena inta subscribe siisay waa 3,000 dad aan ka badnayn, halka 85,000 ay soo martay. percentagekaas idinkaa u qaybinaya. taas waxaa sii dheer youtube-keena, kanaalkeena youtube channelkeena waxaan uga saaray waa dhalinyaro kamida bulshada kanaalkeena ku xiran, falcelin kasoo noqotay. sababtu waxaa weeye annagu halkii aan rabnay inaan wada faraxno oo aynu positive energy-ga wadaagno baa waxay adeegsadeen videoyaashii ogolaanshaha aan ku isticmaalayay linkoodii. xataa intay upload garaysteen ama soo degsadeen maysa gelin, laakiin linkigay qaateen kanaaladoodii bay geliyeen. taasi waxay keentay in dadkii iska lahaa oo anigu aan kasoo qaatay ay khalkhal geliso markay arkeen sida loo daawaday markii koowaad oo aan turjumay inay tahay, iyo in markay linkigii raadiyeen ay kasoo heleen ugu yaraan 12,000 oo video oo ciyaalkii loo caal waayey ah. isfahan brosom halka ay kaga jirtay 16 iyo 2 iska kaftan ahaa. halkaas waxay keentay in ay u qaataan dadkii aan wax wada turjumanaynay ama aan filimaantooda soo turjumi jirnay inay moodaan annagu inaan macaash ka samaynay ama aan sii gadnay. taas waxay keentay inaan anigu u sheego inaan linkigaas ka saarayo kanaalkayga, ayaguna ay copyright strike u diri karaan ciddii ay u baahan yihiin. run ahaantii kuma dhegana anigu copyright strike waa wax dhib badan, waa wax qofku wuxuu kusoo rafaadiyay kanaalkiisa hal mar dhulka dhigaya. laakiin dee anigu waan u ogolahay dadka Soomaalida inay isticmaalaan wixii aan soo geliyay. Facebook xitaa waxaan u keeno qol kasta ay u yaalaan waxa weeye inaan idinku idin soo gaarsiiyo, idinkaga qosliyo. laakiin markii sidaas loo isticmaalo khaldan dhib baa kasoo noqonaya. anigu ma diidanaan qofku inuu qaato, laakiin dee dad bay waxay igala dhexeeyaan. Xabiib Shakeetin in la yiraahdo aad taqaanaan oo xaaji mahagaagana loogu daro bay wax naga dhexeeyaan. marka horta kanaalkayga youtube-ka sidaas aan uga saaray. page-keena Facebook ay ku jirtaa, mana aanan joojin, waan soo wadnaa. labada ka dhiman waan idiin soo gelinaynaa. nimankan awalba si specific ah baan u dooranay ama khaas ah, sababtoo ah waa dad active ah, waa dad wax soconaya soo sameeya, waa dad maalin kasta wax soo saaro aan laga gungaari karin. anu ma ogi inaan muddo inii soo turjumayo waxooda oo allahu aclam, laakiin waa dad wax soo saarkooda aan laga gungaari karinin. marka dee sidaasaan horta youtube-ka kanaalkeena uga saarnay. maantayto laba waxyaabood baan rabnaa inaan taargegarayno hadduu alla idmo. maadaama aan kanaalkeena saas uga saarnay, anigu waan awoodaa in hadda kan markuu dhammaado aan soo gado filim idiin soo gado, laakiin waa ka qayb qaadashadiinaan ku awoodaa. barkee wixii waan aragnay inay qiimo leeyihiin, inaad ka hesheen waan arkaa, laakiin dee $5,000 bay siinayaan copyright-kii marka laga soo gadanayo. dee walaal kanaalkiiyo intaad daawataan aynaan subscribe saaraynin oo aanan macaamiil haysanin, dee 5,000 anigu aan soo xamaalay intaan qaado u diri mayo Xabiib Shakeeti. sababta oo ah dee waa waddo horey ka madow ima muuqato waxaan ugu sii socdo, because 3% ama 4% oo idin ka mid ah hadday kanaalka kusoo xirman lahayn, macaamiil ka noqon lahayd,
أنا waxaan qabi lahaa kalsooni aan ku keeno wax hor leh oo cusub laakiin hadda waxay ila muuqataa you guys are sticking around inaad warwareegaysaan bay ila muuqataa markaas iska sii daawanaysaan kana sii baxaysaan anigu free baan ku service gareeyay saacado badan bay ugu qaadataa inaan soo turjumo tii ugu dambeysay 15aad maahane inta kale cidna ilama soo turjumin nin iyo naag iyo ciyaalkaba aniga ahaa libinta qofka lama aqriye idinku maxaad noogu dhagantiin hadda subscribe saara kanaalka wax hor leh cusub si aan idinku soo turjuno idinku keeno taasina waa